afkaara cusub waxaa jira dadka ayagoo aan dareensanayn waxyaabo qaar ku shubi kara. Aniga waxaan xusuustaa aniga xamaran ku koray intaanan dibaday meelo aadin. waxaan xusuustaa ayadoo iskoolada waagaas waxaa jiray iskoolada dugsi hoose iyo dhexe iyo sare badankeen manaahij carab iyo wax noocaas aan dhigan jirnay. manaahijda aan dhigan jirnay kaliya ma ahayn inaan wax baranayno, laakiin afkaara cusubna waan ka qaadan jirnay. marka badanaa waxaan daawan jirnay waxyaabaha ka dhaca marka luuqada aan baranayno ama siyaasad ama wax noocaas ama arrimo bulsho. waxaan arki jirnay waxa ka socda bariga dhexe. xanuun aad bay u xanuun badan yihiin waxa ka socda wadamada kale, Falastiin, wadamadan carabta markaa fiiriso muslimiinta. waagaas weliba waxay ahayd xilligii 9/11 ay dhacaysay. laakiin arrin igu dhacdaan rabaa inaan idiin sheego. arrimahaas la socodkooda iyo dhaawaca dadka muslimiinta soo gaara ee mar walba naloo sheegi jiray waa wax fiican ay ahaayeen. laakiin waxayna hilmaansiiyeen soomaalinimadeenna. waxaan xusuustaa anoo rabo inaan TV ka daawado arrimaha carabtani waxaan socdo oo dad la dilayo, meelo wadamo la weeraray, anoo la xanuunsan oo weliba caruur ah, inaan soo gudbay laamiga suuqa Bakaaraha Holwadaag oo laba maleeshiyada isku dagaalaya, dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku dhinteen. intaan ka soo tallaabsaday Soomaalidii dhimanaysa ma arkaayo. waxaan arkayaa oo kaliya qofkaas aan TV-ga ka arki doono oo la dilayo, kaasaan la xanuunsadaa. taas macnaheedu wuxuu yahay mararka qaarkood afkaara aan si sax ahayn kuu geli karaa jiro. marka waxaa loo baahan yahay qofka Soomaaliga oo dhalinyarada ah in ay maskaxdiisa gasho inuu yahay hanti, uuna marka ugu horeeya hanti u yahay dalkan. hadduu xanuunsado uu wadaniyada dalkan la xanuunsado, waxyaabaha kale way imaan karaan. ibni aadinimo kalaa u xanuunsan kartaa, islaamnimo u xanuunsan kartaa, dad badan oo aad la damqan kartaa jirto. laakiin wadankaaga waa muhiim, asagaa horta badbaado kaaga baahan. waa marka hore. tan labaad, qofka dhalinyarada ah ee hadda jooga wuu ka nasiib badan yahay qofkii waayadaas joogay. waxaan xusuustaa waayadii marka dowladaha lasoo dhiso oo magacyada wasiiradii waxyaabahaas la sheego, dadka way isweydiiyaan, idaacadaha way dhegaystaan. waagaas xukuumaddii waagii Cabdiqaasim liis dheeraa lasoo bandhigay oo la leeyahay dadkaasa wasiiro noqday. waa markii ugu horreysay oo waxaas aan maqalnaba. marka waxaa leeyahay hebel jaamacad heblaayo ka soo baxay, hebel jaamacad heblaayo ka soo baxay, hebel intuu ka soo baxay, hebel. waxaan xusuustaa anagoo fara badan oo dhalinyaro bulooni cayaaraysa oo markaas dugsi sare markaas bilaabaysa, waxa hal qof oo yaqaana dadkan waxbarashadooda iyo waxa la barto waxay yihiin iyo shahaado bachelor iyo master inaguma jiraba. sababtoo ah wacyigan maanta yaallo oo wiilka yar oo dugsiga hoose dhiganayo uu ogyahay jaamacad, wacyigan ma jirin. laakiin maanta qofka Soomaaliga wuxuu haystaa dowlad kobcaysa, wuxuu haystaa isbedel maxay ahayd ku dhacay dowladnimadeenna, wuxuu haystaa kobac, wuxuu haystaa fursad. marka yaan la dhihin yaan kaliya xoogga la saarin oo la fiirinin duruufaha hadda jira. duruufahan xilli ay ka fiicnaayeenaa jirta. ugu dambeyn, maayarka iyo tiimka kale ee dibadda nooga yimid, soo dhawaada. dad badan oo dibadda ka yimid oo maxay halkan joogaan way jiraan. anigana waa aan qurbo joog ahaan jiraa jirto, laakiin sanadahan dambe dalkan joogay. waxaan rajaynayaa in dhalinyarada dibadda joogta fariintiinana inay gaarto oo isdhexgal uu dhaco. hanti badanna halkaas way nooga maqan tahay. in isku imaatinka noocaan ah iyo wadaagga macluumaadka iyo dabaaldega noocaana markay arkaan inay maxay ahayd ayagana uu dalkan soo jiitaa dhici karta.
maadaama mayorka iyo dad badan oo akhyaarana ay nala joogaan waxaan jecelnahay inay fariintaas qaadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin